بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتون أكسن داوديال كسر دوادا channel كهود official media داوديال برنامج كان واحد كجهاد لدونا مهمة أولية هاي ديكار كان نجا قاعدنا يو سومالان إن دوان إن شاء الله هرنا الله قاعتي إما كانت بلا بلا بدونا برنامج كان واحد إن إلى الدهنية جبريل محمود جبريل أو برنامج شهر إلى سود الدهية صلوا وسعتان إن جبريل سودو ما صنت يعني سودو هاي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحمد وسونا أكسن والله الهرتا أنت هنا نوجد قلين كار كان عد بحنتها يقع هذا الشيء سيوحى الرمبا ربعنا حال كان يرو introduction كان كهالو واحد شرته أحمد الدون كان كله أما سيد العالم كان كلويه وحنا لراسفك education أيها iskuuladan hoose elementary-ga primary-ga ilaa elementary-ga ayaa lagu dhigaa halka inaga lagu dhigayo jaamacadaha civic education wuxuu marka aad yar kan wax soo baranayo ama midda ay yarto wax soo baranayso ka caawiya inay bartaan state-ka what state-ku muxuu yahay wadanka organs of government dawladdu waa maxay organka saddexda organ ee dawladdu u kala baxayso constitution-ka dastuurka waa maxay waxa ay ka hadla haddii aan taab oo civic aso basic aan horta la soo barin yar kan soo koray wax baranaya waxa weey isagoo nu weyna ayuu hadhow wax kala garaway for example waxaad oranaysaa bal waxaad ka warantaa qofka waxaad ka waranaysaa oo maxay dawladnimadu dawladdu wuxuu haystaa tool kolba reerkii qabsada oo ku shaqeysanayo ya waxa koonaysa dastuurka waa maxay dastuurka wuxuu haystaa buugna ma qortay meesha iska yaal oo intaynan u begelin ba horta ID card iyo waxa ahmed ma fahamta marka horta ilaahay ma hadlay waxa dad dadaalaya nahay marka waxaan ku talinayaa in civic education waxbarashada sare iyo toosaba lagu daro صح oo taasoo lagu daro yarka ku soo dhalinta waxbarashada soo dhan aad wax uga caawin doona صح jibril waa maasantahay haday su'aasha koowaad kore jibril ID card-dan sadugtahay horena oo loo qaatay imikana dib loo furi doonaa dad badan oo hore way qaateen iyagoo dad inta ka si badan aan qaadan laakiin seel rajinaya imikana dib loo furo gobolada qaarna ay ka socdaan baa بالفائدة أنت هلك أيوة ليه هاي ID card كان ID card كان وقت والله بقى ID card من نوع دراسة الوطن كان ID من نوع من نوع بدل قعدة ينيو بل بدل ID card بل نوع كلاقات حاجة لها يعني بدل ID card أسوونك سنة أحمد بسم الله الرحمن الرحيم وحيقول إن يرى كل نقطة هذا الكيجي هراء waxaan dhan horta wax dadka u kala saari lahaa hadii civic education-ka sidaan horeba u sheegay ay noogu jiraan waxbarashadan asaasiga hoose ee basic education-ka loo yaqaan okay bismillahir rahmanir rahim waxa weeye ID card waa aqoonsi horta wax kale ma aqoonsiga qof kasta oo muwaadini wuxuu xaq u leeyahay inuu qaato hal card kowda wata aqoonsiga aqoonsiga kaasi marka waa ID card oo wixii lagu aqoonsanayay inaad tahay qof muwaadin ah oo citizen ah oo u dhashay Soomaaliland صح waana muhiim qofkuna wuxuu xaq u leeyahay hal card inuu qaato only one ma fahantay dadkeena wulida waxyaalo badan aynan ka yar bixin baa jirta ma garanaysaa qofka dadka imika inta commission-ku wacyi gelin buu wadaa dadka waxa la war qof kasto hal mid iska qaado ma aragtay oo dadka wixii baan wixii aad noo ma fahansana ta kale waxa baashan xuna qabyaaladu imika aynu ka soo ilbaxayno in hore uga socono ayaa markii hore lu ku yar lahayd oo reeraha qaar bay sanooyaan dareerkaasi for example inuu idinka badan oo kale marka waxaa soo dhow waxa meesha ka saar lahaa civic education-kaasi hadii jiraan waayo dhalintu waxay baran lahayd xaqa wadanka ku leeyahay isaga xaqa wadanku ku leeyahay rights-ka uu dawladda ku leeyahay rights-ka isagu dawladda ku leeyahay waxa soo dhanbay ay baran lahayd ma fahmi marka waan dadaalnaa insha Allah waxa ku kori doonaa kan cod bixinta noqotay isaguna waa soo la mid weey kana qoys uun buu la mid yahay qof kasto muwaadin wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto isagana la doorto markay sidaa tahay waxa waajib qofku inuu haysto
hal kaadh oo ku codeeyo oo wax ku doorto marka isaguna waa qofka muwaadinkii labaduba waxa weeye laba kaadh oo xaq ah u leeyahay faa'iido intee leeg ayay dadka u leeyihiin faa'iidada u leeyihiin waxa weeye axmedow horta markaynu ka eegno dhanka security oo kale amniga waddanka oo kale waa muhiim matalan dadka ka soo galaya xuduudaha kale waxa waajib in la weydiiyo ID-gii keen haddaan ahayn dad fiisa official ah waddanka ku soo galay haddaan ahayn marka qofka muwaadinkii waxa waajib weyn jeebada iskaga sito iminka caalamkan kale qof kasta waalidkiisu ku sitaa boorsidiisa jeebada ayuu ku sitaa waxa kugu dhici kara xitaa adigoo suuqa iska maraya ayaad agshirin gali kartaa waad dhiman kartaa maxaa lagu aqoonsanaya waad aragtay axmedow dhakhtarkaasa waxaa la keenayaa mid waxaa la oranayaa qof aan la garan waayey ayaa cisbitaalka yaalla miidiyaha laga baafinayaa social mediaha idaacadda taasi may dhacdeen hadduu qof kastoo muwaadini oo ID kaadhkiisa yar identity kaadhkiisa oo jeebada iskaga sito taasi may dhacdeen waana waajib caalamkan kale oo dhan qofku jeebada ku sitaa in case wuxuuna kugu dhacaan xitaa wax lagu aqoonsado jeebada ugu jiraaba marka horta faa'iidadiisa waxyaalahaas ka mid ah dadkuna saa u gartaan aniguna waan warinaa dadka inay ID card-ka ay ku soo baraarugaan oo ay qaataan kuwii aan hore u qaadanin haddaanu imaado tirada su-aasheeda xigta dad intee leeg ayaa qaatay baad isleedahay yaa badan dadka aan qaadan iyo dadka qaatay axmedow waxaa badan walaa dadka aan qaadan ayaa aada u badan oo taana duruufo badan baa berigii dhaweeto jiray bay ahayd maogtahay for example waqtigaa waxay ku yar beeganayd waqti aynu kasoo noqonay abaar xun dadkeenu dee waa dad iska agropastoral waad garanaysaa xoolo iyo beero isku haystaan marka xoolahana dadka la guurguurayo dee marka abaar oo kala dhacdo ma garanaysaa marka iyadoo aynu abaar kasoo noqonay bay waqtigaa ku yar beegantay marka dad badanna may qaadan dadkan magaalooyinka joogana waxa weeye axmed dadkan markaan anu si yar eego samirkaa ku yar samirka matalan kuwan magaalooyinka joogay kuyuga laynkiibuu soo galayaa laynkii qofkani dadkan ku jiraa waa kaa soo horeeyeen waa dad sidaada muwaadiniina xaq u leh in iyaguna qaataan oo samir darridu eeg waxyaalahay keenayso qofkii wuxuu yar kar hayaa intaa uu kuyuga ku jiro deetana iskaga tegaya sidoo haddana maalinta kale kusoo noqonaya wuxuu arkayaa safkii hadduu doono yar dheer sidii sileeg markaa dadka waxaa kula talinaya in iska yar samraan ya kaadhkoodana markaa kuyuga qofku markuu soo galo iska samro ha qaato kaadhkiisa oo wax waajiba oo xaq u leeyahay inuu helo labada kaadhba ma fahantay arrinka labaad sidaan kuu sheegay arrinka labaad ee dee koosgareeyana dadku aada u qaadano wuxuu ahaa abaarta berigaan yar haysay iyo dhanka commissionka waa awarenessku oo aada ugu yaraa oo dadka aada loogu boorin ya aada baa maasanta jibriil maxamuud jibriil daawadayaal anaguna waxaan idin leenahay ID cardada waa muhiim qaata in dadkii aan hore u qaadan iminka waxaa la chance ka faa'iideysta dadka aan chance hore uga faa'iideysanin aad bay idinku muhiim tahay hadday codbixinta noqoto soo la socotaan doorashadii ayaa lagu soo foolle qof walibana cod inuu wax doorto in isaga la doorto iyo in uu wax doorto labadaba waa qofka muwaadinka citizenkii waa wuxuu xaq u leeyahay way axmedow ma fahantay labadan kaadhna sidaas leeg ninka qof kastoo muwaadini xaq buu leeyahay labada kaadh inuu helo ma fahantay marka anigoo fursaddan aad siisay axmedow ka faa'iideysanaya waxaan aada ugula talinayaa dadka oo muwaadiniinta reer somaliland degan in kaadhka ay iska qaataan qof kasta labadiisa kaadhu xaqa u leeyahay uu qaato oo sharcigana la ilaaliyo oo qofku haddii uu hal mar qaato aanu goobaha kale codbixintu ka socoto insha allah marka la bilaabo aanu dee policiga u yaalla aanu faragelin oo mar labaad aanu isku dayin inuu qaato haddii mar labaad duplicate samaystiraado waxa weeye daniyo arrintaasi dhaawac weyn bay noo keensanaysaa qof muwaadinana qofkaasoo kale aanu ma arko waxayo qofka muwaadinkii wuxuu xaq u leeyahay inuu hal kaadh qaato oo ID kaadha iyo hal kaadh oo kaa codbixinta
nabadii caanu iska taga markaa صح markaa waxaan kula talinayaa in policyga u yaala commissionka iyo dawladaba u yaala lagu shaqeynayo strategy-ga ay noo ilaaliyaan qof kastoo muwaadinina labadaas xaq u leeyahay uu qaato intaasaan kusoo gabagabeynaya waa mahadsantahay Jibriil Maxamed Jibriil aad baa mahadsantahay daawadayaal barnaamijkeena intaan kusoo gabagabeynayna tan iyo kulanti dib waxaan leenahay nabadgelyo